السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو dhawaada asxaabta qiimaha badan leh ku soo dhawaada muuqaal aad u xiiso badan oo qurux badan oo indhaha soo jiidanaya. ma sha Allah waa deegaan aad u qurux badan sida loo qurxiyay iyo magaranaysa sida biyaha iyo dhirta loogu beeray aad iyo aad ayuu qurux badan yahay, indhaha uu soo jiidanaya. ma sha Allah deegaanka hadii laga shaqeeyo aad iyo aad ayuu qurux badnaanaya, wuxuuna noqonayaa mid mar walba indhaha soo jiito oo mar walba dadka dalxiisayaasha iyo dadka deegaankaaga ku cusub mar walba soo jiidanaya. qurxinta deegaankuna waxay ka mid noqonaysaa magaranaysaa adiga laftaada quruxdaada ay ka mid tahay, oo qofku markuu dalkiisa qurxisto ee uu deegaankiisa hagaajisto waxay ka turjumaysaa qofkan wanaagiisa iyo mar walba dal jacaylkiisa, suu dalkiisa isagu jecel yahay, suu dalkiisa mar walba u horumarinayo. kole dadkeenu waxay ku yaacaan mar walba wadamada dibadaha ayay ku yaacaan, laakiin wadamada dibadda laftooda waa wadamo ay dadkii lahaa qurxisteen. inaguna haddaynu dhulkeena qurxisano oo aynu dhulkeena hagaajisano waxay noqonayaan dhul qurux badan oo loo soo xiiso oo mar walba la jeclaado oo indhaha soo jiidanaya ayay noqonayaan. inagoo mar walba inaguna ka faa'iidaysanayna khayraadka aynu haysano, haddii webiye yihiin iyo hadday badan yihiinba inaguna kuwaan qurxinayna. waayo dadkan imika halkan muuqaalkan noo muuqda waxa lagu qurxiyey waxa weeyaan dhir iyo biyo, labadaa shay baa lagu qurxiyey, dhirtii iyo biyihii. labadaana inagu waynu heli karaynaa haddaynu deegaamadeena iyo dhulkeena ku qurxino, waynu heli karaynaa. ma sha Allah waa biyaha iyo dhirtaas magaranaysaa unbaa labadaa shay baa aad lagu qurxiyey. deegaanka waxa qurxiyaana waa dhirta iyo biyaha, labadaa shay baa qurxiya. marka inaguna waynu haysanaa webiyo qurux badan, waynu haysanaa deegaan aad u qurux badan. marka inaguna haddaynu ka faa'iidaysano in deegaanadeena aynu qurxino, aynu dhir fiican ku beerno, weliba manaafacaad leh oo dadka waxtaru leh sida dhirta quruxda badan ee timirta iyo geedka qumbaha la yidhaahda iyo dhirta kale aadka u quruxda badan haddaynu inaguna ku beerno, dalxiisayaashuna waxay noqonaysaa dhul ay kusoo hirtaan ama ay soo xiiseeyaan oo qurux badan. manaafacaadna waa laga helayaa oo midhahoodii baa la guranayaa. ma sha Allah intii biyuhu ina dhaafi lahaayeen inagu aan ka faa'iidaysanin, marka inaguna inuu ka faa'iidaysano deegaankeena aynu qurxisano, dadka wadamadooda horumariya qurxiya aynu ku dayano ayaa iyaduna muhiima. muuqaalkan waa muuqaal aad iyo aad u qurux badan, ku wanaagsan xilli aad iska yarnasanaysa inaad iska daawato. indhaha magaranaysaa u roon greenka iyo biyaha iyo dhulka akhtarka aad iyo aad bay indhaha u roon yihiin, indhaha usoo jiidanayaan. marka dhulka mar walba markastoo la qurxiyo waa markastoo bilicdiisu ay soo baxdo, markastoo muuqaal qurux badan yeesho weeyaan. marka inaguna haddaynu dhulkeeni wanaajino aynu beerno, aynu si fiican oo qurux badan aynu u beerno, waxay noqonayaan dhul aad iyo aad loo xiiseynayo, indha qabad leh, mar walba soo jiidanaya dadka dalxiisayaasha aad iyo aadna u qurux badan ayuu noqonayaa. quruxda deegaankuna waxa weeyaan mar walba wadooyinka oo kale gaar ahaan in la ballaariyo oo kale weeyaan oo la waasiciyo. dadkeenu laakiin aad bay wadooyinka ugu soo dhawaadaan oo mar walba xagga wadada waxaad moodaa in ay isleeyihiin malaha meherad kale ku hordegi ama xaafad kale kusii hordegiyo wadada. mar walba aad baynu ugu soo dhawaanaa, markastoo wadada laga durko oo wadada la ballaariyo, markastoo deegaankaaga iyo magaaladaadu ay aad iyo aad u qurux badnaato. waxaa magaranaysaa waxay ay dowladdu dhisaysay waxay dadku shacabku dhisayaanna waxba kasii qurux badan ama ka fara badanba waxyaabaha ay shacabku dhisayaan. oo marka shacabku isagu deegaankiisa iyo hoteelada iyo meelaha magaranaysaa mar walba publica haddii dadku qurxiyaan, dowladduna iyaduna waxay dhinaceedii bay ka qayb qaadanaysaa oo qurxinayaan. marka dowladdii iyo dadkii shacabka ahaa oo isku duuban ayaa horumarkii keeni kara, weliba gaar ahaan shacabka u badnaan kara. oo mar walba hadday shacabku iyagu hoteelada iyo meelaha mar walba iyaga u gaarka hadday qurxiyaan, oo gaar ahaan hoteelada inaga magaranaysaa ay nagu badan, haddaynu hoteeladeena iyo deegaanadeena aada u qurxino, inta kale dowladdu ay qurxinaysaana way kusoo biiraysaa. ma sha Allah markaa waad arkaysaan muuqaalada sida biyaha loo qurxiyey, sida loo nidaamiyey. biyaha iyo quruxdoodaasi waxay sheegaysaa mar walba in magaranaysaa ay indhaha soo jiidanayaan oo meel la iskaga nasanayo, meelo ku munaasaba inaad iska nasatid weeyaan. markaad hadhow toola shaqooyinkaaga oo kale kasoo baxdaad iskaga nasanaysaa meelaha yari la qurxiyey, deegaamada yari la qurxiyey aad iskaga nasanaysaa. dhirtuna waxay mar walba ka qayb qaadataa quruxda magaalooyinka. marka magaaladan waxa ku dhex taala meel kaynaad sodhanaysaa, laakiin
waa dhirta lagu beeray baa ka dhigaysa in magaaladiiba meel hawdaho magaranaysaa ay wada dhir ah inay degan tahay ayay u muuqataa magaaladii laakiin waa qurxinta iyo beerida dhirta lagu beeray dhirta la beeraya mar walba waxay keenaysaa inay deegaankii qurxiso inay ka dhigto dhul green ahoo aad iyo aad u qurux badan ayay mar walba ka dhigaysaa asxaabi aad mahadsantihiin channelka subscribe saara muuqaaladana like saara aad nagu cusub tahayna soo dhawow